kulan waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meelba joogtaan waxaan halkadii kusoo gudbinaynaa wararkii u dambeeyay caalamka ee Soomaalida sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa qodobo waaweyn oo la xiriira Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ururka al-shabaab ayaa waxay dagaalo lixaad leh kusoo qaadeen ciidamada liyu booliska waxaana sheegayaa in khasaare baahsan uu ka dhashay dhinaca kale xuduudda gobolka Afdheer iyo gobolka Boqol ayaa la sheegayaa in waqti xaadirkan ay dagaalo ka socdaan sidoo kale xageey ku dambeeyeen kooxdii dableyda ahayd ee ka tirsaneyd ururka al-shabaab ee gudaha u gashay dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Afdheer iyada xog ayaan idinka haynaa dhinaca kale waxaa mar kale dib u qaraxday xiisadii u dhaxaysay maamulada Puntland iyo sidoo kale Somaliland oo la soo sheegayo in ay xiisad culus ay ka dhex bilaabatay dhinaca madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa hanjabaad culus u diray maamulka Puntland waxa uu sheegay in saacadaha soo socda ay bixin doonaan jawaabo ku aadan murankaasi dhinaca kale mucaaradka Somaliland oo war weyn ka soo saaray doorashada la filayo inay dhawaan ka qabsanto guud ahaan maamulka Somaliland dhinaca kale gobolka Hiiraan ayaa laga soo sheegayaa in ay xiisado culus halkaasi ka jiraan waxayna u muuqataa kooxda al-shabaab in ay argoosi ku sameynayaan shacabka deegaanka oo dhawaan hubka qaatay isla markaana dagaal kala hortagay dhinaca kale waxaan eegi doonaa isqabqabsiga iyo khilaafka u dhaxeeya madaxda Soomaalida iyo xaalka ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo laga soo sheegayo in amni xumo baahsan ay ka jirto qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku soo qaadan doonaa waxaan stuudiyaha lagu sugan saaxiibkay Santaag oo si dhow ula socday arrimaha gobolka Santaag uu horreyn soo dhow aad iyo aad baad mahadsantahay bal ugu horreyn waxaad inooga warantaa waxaa mar kale la soo sheegayaa in kooxda al-shabaab ay weeraro lixaad leh ay ku qaadeen ciidamada liyu booliska halkaasina ay khasaare badan ka dhasheen aad iyo aad baad mahadsantahay ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaynaa maalmihii ugu dambeeyay baa ciidamada new booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada militariga ee dalka Soomaaliya oo isgarabsanaya ayaa waxay wadeen weeraro ay maaragtay ku baacsanayeen kooxihii argagixisada ee dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida iyo degmooyinka gobolka Boqol ee dhaca dhinaca xadka dowlad deegaanka Soomaalida weerarada gaadmada ku soo qaaday bishii la soo dhaafay ciidamadu waxay sameynayeen baacsi iyo sidoo kale weeraro joogto ah oo ay ku turjinayaan ayna ku maaragtay doonayeen in lagu soo ciribtiro kooxahan argagixisada ee ku sugan dhammaanba maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa madaxda ugu sarreysa heshiis la soo galay kadib weeraradii ka dhacay degmooyinka xadka gobolka Boqol iyo u dhaxeeya gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida isagoo kala maaragtay ay ka wada hadleen madaxdaasi sidii la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka ururka argagixisada ee shabaab ee dhibaatada ba'an ku ay halkaasi waxayna ku heshiiyeen in si wada jir ah loo wada hawlgalo oo ciidamada loo wada hawlgaliyo isla markaana dagaalka lagu soo afjaro ama muddo koobanba lagu soo afjaro kooxaha argagixisada ee gabi ahaanba ku sugan maamulka koonfur galbeed iyo gobolka Boqol oo dhaca dhinaca xadka dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Afdheer dagaaladii ugu dambeeyay ciidamada new booliska iyo ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed waxay sameynayeen guulo waaweyn ayay ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyay waxay soo bandhigeen maxaabiis badan oo ay qabteen waxay soo bandhigeen rag badan oo dableo ka tirsan ururka shabaab oo ay laayeen bay soo bandhigeen waxay mar sheegeen ba mas'uulkii ugu sarreeyay gobolka Boqol inay dileen walow markii dambe dib laga ogaaday in maaragtay ay mas'uulkaasi u sandhibanin maanta marka shabaab waxay sameeyeen weerar mayso soo qaadina waxay sameeyeen duqeymo ayay ku garaaceen degmooyinka dhaca dhinaca xadka sida degmada Yeet iyo sidoo kale Aato Washaaqo iyo sidoo kale deegaano badan oo xadka dhaca ayay ku garaaceen gantaalo istaba jooga waxaa la sheegayaa in goobtii gantaalada laga soo tuuray in ciidamadu ay u dhaqaaqeen ciidamada new booliska walow weli aysan waxba gacanta ku soo dhigin balse waxay u muuqataa in dableydu ay soo dhawaadeen kadibna ay gantaalo halkaas ay ku garaaceen dhinaca kale ilawradyo ayaa sheegaya in khasaaraha rasmiga aan la cadeyn karin balse xerada dhexdeeda ay gantaaladu ku dhaceen waxyeelana ay gaarsiiyeen gantaaladaasi ciidamada new booliska oo halkaasi ku sugnaa dhinaca kaleeto waxaa socda iyadana abaabul ciidan oo laga cabsi qabo inay mar waliba shabaab ay argoosi ahaan weerar u soo qaadi doonaan maadaama dagaalkii ay ku qaadeen dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida ay ku jabeen oo dhibaato xooggan la gaarsiiyay 500 oo askari oo gashay gobolka Afdheer maanta aan la haynin inta ay ciidamada 200 ee ay dowladdu qabatay ee ay u dirtay stationada ay geysay mooyeene ama xabsiyada ay u dhaadhicisay mooyeene intii kale tacagta la mariyay oo qofna uusan ka baxsanin oo gabi ahaanba la gubay dhib badanna halkaasi laga gaarsiiyay waxay u muuqataa shabaabku inay marka istiyaarinayaan weerar gaadma ah intay qaadaan in ay ka aargoostaan ciidamada new booliska ee jabkaasi u geystay dhinaca kale waxaa iyadana la sheegayaa
meel aan ka dheerayn degmada Yeed in ciidamada New Booliska iyo sidoo kale ciidamo kooban oo ciidamada militariga oo 5 sano la soo dhaafay uu geeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamada maleeshiyaadka ee ka amar qaata Cabdicasiis Laftagareen in oo ayagana dagaal oo halkaasi ku dhaxmarahayo oo halkaas uu ka socdo guulaha la kala gaaray lama sheegi karo balse waxa la sheegay in dableydun ay ciidamada New Booliska markii hore ay ka war heleen dableydan oo doonaya inay weerar ku soo qaadaan degmada kadibna ay halkaasi weerar kala hortageen dhinaca kale waxa la sheegayaa in is-abaabulka iyo sidoo kale dagaalada halkaasi ka socday maalmihii ugu dambeeyayba ciidamadan maaragtay shabaabta jab weyn loogu geystay oo ciidamada New Booliska iyo ciidamada kale ee Koonfur Galbeed iyo kuwa Soomaaliya federaalka ka amar qaataba ay maaragtay guulo waaweyn ay ka soo hoyaan ayaa la sheegaya waa tahay waxaan ognahay in dhawaanahanba ay ururka al-shabaab isku dayayaan ama ay xoogga saarayaan dhanka xuduudda dowladdaanka Soomaalida haddaba maxay tahay qorshaha iyo hadafka ay ka leeyihiin hadafka laga leeyahay waxa weeye ciidamada New Booliska ayaa ku soo qulqulaya ciidamada Ethiopian ayaa ku soo qulqulahaya gudaha maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Hiiraan waxayna ujeedkeedu yahay hadii ciidamada ay soo gaaraan oo gudaha ay soo galaan in aysan dhulkaasi nabad ugu seexanaynin oo lagu soo afjarayo muddo kooban marka waxa weeye annagana waan joognaa oo meesha fadhigooda aan ugu tagna inta guryaheena iyo carruurta iyo dhasha laga soo weerar lahaa aan ugu tagno gudaha weeye awood ay maanta shabaab leedahay oo gudaha dowladdeegaanka Soomaalida Ethiopia ay ku gasho maylaha laakiin waa ku dhufo ka dhaqaaq ciyaal yar oo waxa weeye wax magaratay ayaa la hubeynayaa kadibna laga dhaadhicinayaa in lala jahaado oo dadka Soomaaliyeed ee dowladdeegaanka Soomaalida uu gumaysi iyo dawlado shisheeye iyo gaalo ay haysata ayaa laga dhaadhicinayaa iyo waxaan waxba ka jirin ayaa laga dhaadhicinayaa laakiin iyaga naftirkooda ujeedkii ay ka lahaayeen ciidamada faraha badan ay gudaha dowladdeegaanka Soomaalida u soo direen sida gobolka Afdheer iyo gobolka Shabeelle waxaa ka soo gaaray dhankalaasa kulul oo aysan mar dambe ku dhiiran doonin meel Ethiopia kamid ah inay cagta saaraan waa tahay haddaba xaggee ku dambeeyeen dhawaan ururka al-shabaab ee soo galay gudaha dowladdaanka Soomaalida waxaa la sheegay qaybaha yar inay horta dhinaca degmada Ceelkarri ee gobolka Afdheer ay u baxsadeen afar bari ka hor ayay ahayn ciidamada New Booliska in ay sheegeen inay ku raad joogeen dadkii ka dambeeyay ee ciidamadaasi hagayay ee degmada Ceelkarri ku soo hogaaminayay in la soo qabto kooxa yar oo marka nafla cariya oo cararay ayaa buurahan Ceelkarri sidaad ogtahay Ceelkarri waa dhul buuraley ah oo aad maartay hawd u aweeye dhulkaasi ayay galeen baa la yidhi ciidamada New Booliskuna waxay soo bandhigeen meydadkoodii iyo qaybo kamid ah oo ay soo qabteen waana dadkii halkaasi hagayay ee ayagu u ahaa monitaga ama maaragtay ka dambeeyay micnaha inay kooxahani ay soo galaan gobolka Afdheer marka waa la soo qabtay gabi ahaanba ciidamada New Booliskuna waxay sheegeen inay gabi ahaanba ay soo afjareen oo hadda wax dambe oo goobtaasi ku dhuumaalaysanaya aysan jirin waa tahay haddii aan dhankaas iyo Somaliland wuxuu khilaaf xoogan mar kale soo kala dhaxgalay maamulada Somaliland iyo Puntland haddaba khilaafkan muxuu salka ku hayaa waxaan ognahay in dhowr mar hore uu khilaafyo iyo gacan ka hadal waliba u dhaxmaray horta sidaad ogtahay maamulka Puntland iyo Somaliland dhul ayaa la isku haystaa muran ayaa ka dhaxeeya dhulka la isku haysto waa goboladan Sool iyo Sanaag dhulkaasina waxaa dega beelaha dhinaca Puntland la beesha ayaa dega iyaga ayaana muranka keenaya mar waliba madaxda loo magacaabo goobtaasi markii ay markaas ay waayaan maamulka ay ka waayaan danahooda qaaska ee shakhsi ahaaneed ay ka waayaan ayaa waxay saxiix la galaan ama heshiis ay la galaan dhinaca maamulka kale ay heshiis la galaan dhulka la isku haysto waa dhul Soomaali baa degta waa dhul labada gobolba xuduud iyo xad la ah hadba maamulku dhinaca ay raacaan ayaana isla haysiya waa muran dhuleed weeye maanta waxa weerar iyo dagaal uu ka dhacay la sacaanood degmadaasi oo maalin ka hor ayada naftiga Boocame ay dagaal uu ka dhacay Boocamana sidaad ogtahay waxay hoos tagtaa la sacaanood ay hoos tagtaa marka dagaaladan waa dagaalo soo jiray muddo dheer ayayna isqa qabsigaasi ay soo jirtay Puntland iyo Somaliland ay u dhaxaysay Puntland waxay ku antacoonaysaa dhulkan inay iyaga iyo familkooda iyo dadkooda ay degaan oo isku hayb ay yihiin isla markaana aysan marna meel uga tagaynin dhinacan kale waxay sheegayaan iyaga naftirkooda dhulkan in Ingiriiska xilligiisii seerkan loo sameeyay oo Somaliland dhulkan ay leedahay iyadu oo Ingiriiska xilligiisii dhul seer oo la sameeyay ay tahay isla markaana Somaliland aysan marna dhaafaynin dhulkan oo iyadu ay leedahay marka labada marka muran waxaa mar waliba masiirkaasi go'aamin kara shacabka halkaasi ku nool dhinaca iyagu ay wada raacaan haddii afti loo qaado iyo haddii haddaba ay ku dhawaaqaanba dhinaca shacabkaasi ay u bataan oo iyaga ay dantooda shacabka iyo sidoo kaleeto danahooda ay ka arkaan unbaa masiirkooda go'aamin doona dhinaca uu dhulkaasi uu raacayo waa tahay dhinaca kale maamulka Somaliland
gaar ahaan mucaaridka maamulka Somaliland waxay dirayaan digniino xooggan iyaga oo weliba sheegaya haddii doorashada waqtigeeda ay dhici weydo in wax walba laga filan karo. Haddaba hadalkaasi maxaa loo fasiran karaa? horta mucaaradku waxa kaliya ee ku qaylinaya waxa weeye doorashada xilligeedii ha ku qabsoonto oo doorashadu ha dhacdo xilligeedina ha ku dhacdo hana ku dhacdo dastuurkii iyo sidoo kaleeto waxyaabihii loo jideeyey ama hab socodkii loo jideeyey doorashooyinka ee dhowr iyo 20 saac sane ee ugu dambeeyey ay Somaliland kusoo dhaqmaysay. Madaxweyne Muuse Bixi waxaa lagaga cabanayaa in guddigii doorashada uu kala diray, komishinkii doorashada uu kala diray, xubno uu ka bedelay, qaarkood ay iscasileen cadaadis markii ay la kulmeen in waqtigeedii uu rabo inuu dhaafiyo oo muddo kororsi uu sameeyo. Xisbiya mucaarad oo xilligii furitaankooda aan joogin oo waqtiba aan loo haynin inuu hadda uu kusoo daray xisbiyada mucaaradka uu kusoo daray abaabul uu doonayo labadan xisbi mucaarad xisbiga wadaniga ucud uu doonayo inuu ku burburiyo oo awoodooda uu ku dhimo inuu samaynayo cuburin shacab inuu samaynayo mudaharaadyadu inaysan dhici karin xabsiyada inay dadku ka buuxaan oo bilaash macno la'aan maaragtay ay uga buuxaan in waxa weeye dadka isaga ka adkaarka duwan ama ka duwan aragti duwan ee xisbiyada mucaaradka taageera xubnaha uu isleeyahay markaasi waa shakhsiyaad adag u leeyahay inuu xabsiga iskaga taxaabo qaarkood in la toogtay xildhibaanadu iyo ama golaha gurtigu inaysan u madax bannaanayn howlahoodii shaqo ee loo soo doortay. Marka waxa laga tabanayo waa waxyaabo dastuuri ah oo dastuurka Somaliland uu qorahayo midka caalamka uu qorayo bini'aadanimadu ay qorayso oo si weyn madaxweyne Muuse Bixi uga hor imaaday. Waxa kale oo ay ku eedeynayaan inuu ninkani uu ahaa Corneyl Maxamed Siyaad Barre xilligiisii isla markaana waxa isaga la quman iyo cuburinta burburinta dastuurka iyo afduubida xariga iyo sidoo kaleeto xisbiya la dagaalanka xisbiyada mucaaradka iyo xorriyad qowlka in uu si weyn u howlahaasi uga shaqeeyo isla markaana uusan ahayn shakhsi ka turjumi kara xorriyadda iyo sidoo kaleeto dimuqraadiyadda Somaliland dhowr iyo 20 sano ee ugu dambeeyay ay yagyeelayeen iyo sidoo kaleeto caalamka laga dhaadhicinay inay yihiin dal dimuqraadi ah madax bannaani qaadan kara dowladnimo qaadan kara shuruudihii loo baahnaa oo dhan buuxiyey ka go'i kara dalka Soomaaliya in ay yihiin ayay marka lagu eedeynaya inuu isaguna arrintaasi ka hor imaaday. Madaxweyne marka Muuse Bixi xaaladaha hadda uu samaynayo وحالado shacabka Somaliland intooda badan ay si weyn u dhalisan yihiin oo aan u cuntayn. Waxa kale oo lagu eedeynaya in wiilkiisa uu ka dhigay jananka ciidamada ugu sareeya ciduu rabana uu ku gumaadayo waad ogeed maalin dhaweed mudaharaadkii yaraa inay dhowr iyo 10 qof lagu toogtay oo la dilay guryo la gubay hanti badan ay khasaartay ciidamada ayuu adeegsanaya marka qaab ka duwan qaabkii Somaliland ay ku socotay sanadii la soo dhaafay. aad iyo aad dhinaca kale kooxda al-shabaab oo weeraro aargoosi ah ka bilowday Hiiraan iyo Galgaduud. Dagaalyahanada kooxda al-shabaab ayaa xoojiyay weerarada gaadmada ah ee ka fulinayaan qaybo ka mid ah gobolka, gaar ahaan deegaanada hoostaga maamulada Hirshabelle iyo Galgaduud, kadib markii ay kordheen howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda oo garab ka helaya maleeshiyaadka deegaanka. Kooxda ayaa saacadihii u dambeeyay howlgallo qorshaysan ka fuliyay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, waxa ayna burburisay ceelal iyo guryo ay deganaayeen dad shacab ah iyo xarumaha isgaarsiinta oo ay ku xiriiri jireen dadka deegaanka. Haddaba arrintaasi ayaan wax ka weydiiyey Santaag oo igula sugan stuudiyaha. Santaag, bal arrintaasi ka waran. horta kooxahan argagixisada baryihii ugu dambeysay goobaha ay dagaalada xoogan kala socdeen waxay ahaayeen gobolka Bakool oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabelle. Sidoo kale Galgaduud ayaga naftirkooda diblomaanti fiican ay ka sameeyeen dhinaca dagaalanka urka argagixisada oo dagaalo ay kula jireen. markaan u imaano gobolka Hiiraan oo ka tirsan Hirshabelle aan u imaano shacabkooda maamulkooda gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada Beledweyne gudoomiyaasha degmada sida Matabaan oo kaleeto dhammaantood oo isgarabsanaya duurka ayay sa u wareegahayeen waxay dagaal kula jireen kooxahan argagixisada ay dagaal kula jireen urka al-shabaab waxay qabteen in ka badan dhowr iyo 10 deegaan oo ay gacanta ku hayeen saldhigyo ayay cagta mariyeen. Marka weeraradan ay saaka soo qaadeen ceelasha iyo dadkan reer guraaga ay ku soo qaadeen shabaabku waxay ugula jeedeen maxaad u taageerteen dawladdii iyo maamulkii halkaasi dagaalkan ugula jiray ee khawaarijta ahay anaga nala dagaalayay maxaad u taageerteen ayaa lagu haystaa. gabi ahaanba marka inta reer guuraa u imaadeen iyo ceelal laga cabeeyay imaadeen bay ceelashiina xabaaleen guryihiina gubeen shacabkii bay cagta mariyeen. waa nooc marka laciifnimo meeshii ugu dambeysay ah oo ay u dhaqmayaan kooxaani weeye mar waliba oo lala dagaalana waxay ku dhaqaaqayaan shacabka maxaad noo difaac weydeen anaa noo garab geli weydeen
od raacdeen dhinaca dowladna ma raacino shacabku hadda xiliyadan waxay la daada dhacayaan abaaro sanadihii ugu dambeeyey gaajo cunto yari dhibaatooyin xoogan oo haystay xoolihii oo ka dhamaaday nin walba marka ciyaalkiisa iyo sidii wax u korsan ilmihiisa u korsan lahaa ayuu la daada dhacaya marka kooxahan qaabka marka ay u dhaqmayaan waa qaab lagu yaqaano mar weliba oo dagaalo xoogan lala galo oo la dhameeyo oo laga taagroonaado oo awoodooda ay wiiqanto inay iyagana shacabka ay ku dhaqaaqaan si shacabku cabsi darteed ee iyaga u raacaan waa tahay haddaba haddii arrintaasi ay sii xoogaysato dowladdana aysan garab ka helin shacabka deegaanka oo al-shabaabna ay bilowday waqti xaadirkan in kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale guryihii isgaadhsiintii waxbarashadii iskoolaadkii ay ka burburiyaan shacabka deegaanka maxaa xalo waxaa xal u noqonaya dee shacabku xalkooda way og yihiin sababta ay dowladda u taageereen iyagoo haystay maamul iyo sidoo kaleeto niman markaasi kala xukumo oo goobihii iyagu ay deganaan ku sugan ay haystaan sababta ay u raaceen dantooda ayay arkeen soo ma marka shacabku laba dab oo ololaya ayay dhinacyada kaga sugan yihiin walow dowladda dhinaceedu aysan inta badan shacabku dhibaato u geysanin goobo markay qabsadaan oo ururka argagixisada ay ka qabsadaan ama dagaal ay la galaan aysan dhibaato toose u geysanin marka laga reebo saamaynta dagaal dee meel lagu kor dagaalamay dagaalka saamaynta uu ku yeelan karo shacabku maanta Soomaaliyeed waxay u heelan yihiin oo ay rabaan oo ay sugi laayihiin dowlad Soomaaliyeed inay arkaan oo mar laga dulqaado ururada argagixisada jabhado iyo sidoo kaleeto isbaarooyin dhibaato xoogan oo 30 sano u dambeysay haysatay ma jirto shacab Soomaaliyeed oo maanta taageeraya jabhad iyo urur shabaabtoona oo isqarxinaya taageeraya ma jiraan waxay taageersan yihiin dowladooda ay rabaan balse awooday maanta laakiin ku dhahan anagu dowladii baan rabnaayay malaha oo goobaha qaarkood waxaa ku sugan nimankan aftuma cidi saa dhahdaa madaxa ayaa la fujinaya aad iyo aad dhinaca kale haddii aynu eegno dhankaas iyo Kenya laamaha ammaanka ee dalka Kenya ayaa digniino ku aadan soo saaraya ammaanka kadib filitaanka la filayo in maxkamadda dalka Kenya ugu sarreysa ay maalinta Isniinta ku dhawaaqdo go'aanka ugu dambeeya ee laga filayo dhanka madaxweynayaasha ee dhawaan loo gudbiyay waxaana laamaha ammaanka ay sheegayaan in dhawaan la joojin doono isku socodka gobolada qaar ee dalka Kenya dawadayaal war waxaan dal dibadda ka haynay oo aan halkan idinku soo gudbinaynay intaas ayaan ku soo koobaynaa tan iyo intaan warkan xiga aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo